Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa gudoomiyay shirka Golaha Wasiirada oo ku saabsan xaaladda guud ee dalka, ansixinta miisaaniyadda dowladda 2022 iyo guddiga fulinta wareegtadii madaxweynaha ee ku saabsan ilaalinta dhulalka danta guud. Golaha Wasiirada ayaa ansixiyay in Cabdiqaadir Cilmi Cali loo magacaabo agaasimaha Hay'adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaaliyeed, waxayna uga mahadceliyeen agaasimihii hore ee hay'addaasi Maxamed Aadan Koofi shaqadii wanaagsan ee uu soo qabtay, halka ay sidoo kale ansixiyeen guddoonka Hay'adda Batroolka Soomaaliyeed Cabdiqaadir Aadan Maxamuud. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa bogaadiyay kororka iyo ansixinta miisaaniyadda dowladda ee 2022 ayaa ku bogaadiyay Wasaaradda Maaliyadda oo miisaaniyadda 2022 ku soo dhammaystirtay dhammaan hay'adaha dowladda ee ka shaqeeya kordhinta dakhliga dowladda iyo golayaasha wasiirada oo ansixiyay. Dhanka kale, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalk Soomaaliya isagoo tixraacaya go'aankii xeer madaxweyne ee ku aadanaa ku takrifalka musuqmaasuqa dhulalka danta guud ee xilliga doorashada oo uu soo saaray madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday ee Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya 27 sanadkan 2021 ayaa waxa uu u magacaabay guddi heer wasiiro ah oo u qaabilsan ilaalinta iyo ka hortagga boobka iyo in la musuqmaasuqo dhulalka danta guud, waxayna xubnahaasi kala yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Jenaraal Mukhtaar Xuseen Afrax gudoomiye, wasiirka cadaaladda Cabdiqaadir Maxamed Nuur xubin, wasiirka amniga gudaha Cabdullaahi Maxamed Nuur xubin, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Abikar xubin. Shirka Golaha Wasiirada ee maanta waxaa looga hadlay qodobo kala duwan oo aad muhiim u ahaa. Shirka waxaa shir gudoominayay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalk Soomaaliya, waxaana ugu horeyn warbixino laga dhageystay wasaaradaha amniga iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda gargaarka oo arrimaha gargaarka iyo gurmadka abaaraha laga dhageystay. waxaa intaa kadib shirka Golaha Wasiirada maanta ay ansixiyeen magacaabista agaasimaha cusub ee Hay'adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha oo loo magacaabay Cabdiqaadir Cilmi Cali, waxaana loo mahadceliyey agaasimihii hore ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo maaragtay hawshaas muddo si wanaagsan u soo waday. Sidoo kale waxaa isna maanta Golaha Wasiiradu ay ansixiyeen gudoomiyaha Hay'adda Batroolka Soomaaliyeed oo loo magacaabay Cabdiqaadir Aadan Maxamed, injineer Cabdiqaadir Aadan Maxamed. Isagana waxaa ilaahay looga baryay in hawshaas muhiimka ilaahay uu fududeeyo. Sidoo kale Golaha Wasiirada maanta waxay ku ansixiyeen miisaaniyadda sanadeedka sanadka 2022 miisaaniyaddaas oo dhan 699.1 milyan oo qiyaastii ah lacag ku dhow 700 milyan, waxaana lacagtaasi qayb ay ka noqon doontaa sanadka soo socda horumarinta iyo arrimaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda dowladda. Sidoo kale iyadoo laga duulayo wareegtadii ama xeerkii madaxweynaha uu soo saaray dhowaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya iyo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya maanta waxa uu magacaabay guddi ilaaliya hantida qaranka danta guud iyo dhulalka guud, waxaana guddigaasi ay kala yihiin gudoomiyaha guddigaas waxaa weeye wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha dib u heshiisiinta Jenaraal Mukhtaar Xuseen Afrax. sidoo kale waxaa xubno ka ah wasiirka cadaaladda Cabdiqaadir Maxamed Nuur, wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo sidoo kale wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Abikar Xaaji. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho.